السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قالقا كسو دوادا يوتيوب channel كينا daryeelka jirka caawa insha Allah waxaa idinla wadaagayaa sideen ku helaa caga jilicsan oo aan lahayn hilib safan iyo dildilaac iyo adeeg qofku xataa marmarka qaarkood adiga aan cagahaagu dildilaac lahayn ciribta iyo faraha hoostooda iyo ka adkaan karaan oo marmarka qaarkood haddii aadan mar walba aadan gacanta ku hayn insha Allah marka caawa waxaa idinla wadaagayaa maxaasee aan maxaan ku rahdaa uga taxadaraa alaabtaas oo aan uga badbaadaa waxaan halka idinkugu hayaa waa faasiliinka noociisa skin protectionka iyo healinka iyo ku qoran tahay faasiliinku noocyo badan yahay marka waxaan u malaynayaa upside down buu akhrinayaa marka skin protection baa xataa ku qoranin marka adiga waa faasiliin haddii aan xataa noocaan haysan nooci kaloo haysatay xataa wuu ku anfacayaa insha Allah waxaan kaloo u baahannahay xabad liin dhanaana xabada dhan ma baahnin waxaan u baahannahay jeex waxaan kaloo u baahannahay baaquligan ku qasan lahayn iyo qaadadii waxaan kaloo u baahannahay sodosyo ama sigsiyaan saa u taqaanid insha Allah waa bilaabanaynaa marka si sahlan oo aad u fudud aadna kugu caawin doontaa u isticmaalaynaa waxaan u baahanaa qaado faasiliinka ah xataa qaado aad u badan adiga hadba qiyaastaada inta aad ugu baahan tahay way badan doontaa aad bay u badan doontaa waxaan u baahanaa inaan aad u qasno oo aan liinta ku tuujinaynaa markaa liinta ku tuujisid sidii waxaa isku dhex gelinaysaa aad baa u qasaysaa aad baa isku dhex gelinaysaa faasiliinka qofka wuxuu ka ilaalinayaa meelaha dildilaaca ah qaar baa jiro loo isticmaalo mar walba faasiliin kasta xataa wuu ku caawinayaa meelaha dildilaaca meelaha nabarkaa soo gaaro dhan aad buu kugu fiican yahay marka hadda saana u qasaynaa waxaan isku soo qasaynaa waa faasiliinka iyo liin dhanaanta bas waxaa loo baahan yahay in aad isku dhex gelisid xoogaa waqti fiican buu kaa qaadanayaa in aad isku dhex gelisid markii uu nooc kale kusoo baxo oo alaab nooc kale kusoo baxdo liin dhanaanta dhanna ay dhex gasho ku qasmato isaga dhan wax jileec ah oo kareem kale ah uu kugu soo baxo markaasuu diyaar kuu yahay laakiin marka hore waa inaad xoogaa waqti fiican gelisaa hadba isku celisaa hadba isdhex gelisaa oo aad isku dardartaa liin dhanaantuna sidoo kale degdeg ayay waxay kaaga soo qaadaysaa qoloftii oo meeshay qoloftu lahayd meesha adkaatay bay si degdeg ah kugu jilcinaysaa waa alaab aan tijaabiyey oo anigu aan ogaaday faa'iidadeeda aad bay u shaqaynaysaa fadlan tijaabi waqti badan kaa qaadan mayso caawa keliya maanta keliya bay ku xiran tahay oo hal maraad qastid haddii marka waxaad samaynaysaa alaabtan aad baa isugu qasaysaa markaa qastid oo aad maxaan ku leedahay waqtiga ugu badan kaa qaadan karto waa inaad liin dhanaantaas meesha ka baaba'daa liinta saa hadda ujeedan waa biyo marka ilaa ay meesha ka baaba'do oo liin dhanaanta ku dhammaato kareemka wada dhex gasho diyaar maahan markaad diyaarisid oo aad faasiliinkii iyo liin dhanaanta aad isku soo isdhexgelisid waxaa u baahan tahay keliya markaas inaad sogosyaada ku xiratid xilliga aad adigu shaqaynaysid waxaa u baahan tahay markaa guriga ka shaqaynaysid sidoo kale hawsha qabanaysid oo mashquulsan tahay baa waxaa u baahan tahay inaad xiratid oo aad ku socotid marka sigsaantaa gashanaysaa sogosyada waxaa rabtid hadba magaca u taqaanid baa ku xiranaysaa kareemkana aad u marina cagaha markaa aad u marsatid gacmaha xataa waa u isticmaali kartaa mar walba meeshii aad marisidba adayga iyo wuxuu kaa qaadayaa qolofta adayga ah oo laga naxayo oo aan la taaban karin xataa haddaa intaa dhigatid intaa qasatay halkaa aad dhigatid 2 maalmood waa marsan kartaa 2 jeer 3 jeer waa marsan kartaa meeshaas ku ooli karaa marka
adiga cagaha marsanaysaa kareemkii baa dhex gelinaysa marka cagihii kareemkii aa marisid sisaanti baa ku xiranaysaa markaas oo sida xiratid baad ku shaqaynaysaa waa in cagihii ku dhididaan oo ku socdaan oo ku shaqaysid oo kareemkii iyo leentii iyo wixii ay cagihii hawsha soo qabtaan markii aad cagihii kareenkan hawshaad soo dhamaysatid intay doontaba ku noqoto ugu yaraan ilaa saacad ka yar hadaarti xataa dee markaa howlahaaga dhamaysid waa iska fariisanaysaa waa iska markaad qubayska iyo wasadaada iyo dhaqdhaqashadaada waxaa arjid badiyaa u tahay baad waxaad soo qaadanaysaa biyo qandac ah weel baa waxaa ku shubaysaa insha allah biyo qandac ah liintaad ku tuujinaysaa qolofta liintana jeexa liinta qolofteeda soo qaadanaysaa macnihii liintii aad tuujisay qolofteedii haddii aa haysatid bahalada cagaha lagu dhaqo ama wax cagaha lagu isticmaalo ayaga oo qoloftii waxaa soo qaadayo waa isticmaali karta haddaad haysana liinta qolofteeda kaaga filan liinta qolofteeda ayaa cagaha aad ugu xoqaysaa saabuuntii aa haysataan ku dhaqaysaa kareemkii iyo wixii aa marsataa kusoo shaqaysay iyo biyihii qandaca ahaa baa ugu daysay waxaa soo baxaya maasha allah lugahaagii oo ilmo yara inuu dhashay aa moodaysid waxaa isleedahay ilmo yaroo nacnaca hadda dhashay baby ahba mise waa lugahaagii aduu aa lahayd marka aad kasoo baxdid oo lugahaagii oo butuc aad soo baxdid markaa waxaa iska fiican inaa markaa inta aad guriga joogtid maalintii iyo markaba hakaaga iska tahay mashquuladaadii waxaaga iska tahay waxaa iska fiican inaa faasiliin caadiya iska marsatid markaas aad sugasiyadaadii waxaaga iska xiratid haddaa rabtid sugasyaha xiranin laakiin in cagihii ay helaan wax ka cesho qolofta iyo dabaysha iyo maaragtay ama maxaan ku dhahdaa maanta dhan dhulka marmaree dhulkii ku baxkeenay lugihiina waa qallalan yihiin markaas xoogaa way dildilaacayaan marka waxaa fiican inaad xoogaa isdhexgelisid oo mar walba uu maxaan ku dhahdaa kareenka aa haysatid faasiliin ha noqdo wax kale ha noqdo faasiliinku aad buu cagaha kule u caawiya ani inta arkay markay hadal yaana in ku daalin asxaabta waxaa idin leeyahay soo tijaabiye alaabtaan hadda weli waa ujeedaan ma dhawaac abaarkaan dhan waa qasaayaa mana dhawo oo weli liintii waa kor maraysaa kareenkii ma dhexgelin ilaa ay kareenka dhex gashana ma saxsana xaaladu waa diyaar ma waa liintaan iyo kareenka isku dhamaadan marka waa soo dhexgelinayaa waqti baan soo siinayaa insha allah isku soo noqon doonaa asxaabay waatan alaabtii markaan sayta isugu soo qasay garaacay waqti gashay gacanta ula tagay saanay soo noqota cabaar dhanay kaa qaadanaysaa ina aad isugu qastay isdhexgelisid marka waxaa intusayaa markuu caadiga yahay si u egyahay iyo markaan si u egyahay baa insha allah intusayaa markaad soo qastid oo waqtiga gelisid saas u ekaanayaa marka kalena waa kana marka kalena saas u egyahay markaa waqti gelisidna saan u ekaanayaa insha allah marka saasaa lagu kala duwan yahay marka aan la qasin wakaas saas caadigaa buu u ekaanayaa markaa qastidna saan u ekaanayaa waa waqtiga gelisidna marka ujeeda saasoo kale u kala daadaadanaya waqti badan kaama raadinayo saas u daadanaya waa inaad saa usoo gelisaa waqti saa usoo qastaa markastaa sii qastid oo maaragta isdhexgelisid isagiyo lindhanaanta aad buu wuxuu usii noqonayaa bari baa moodaysaa soo idaad camal oo kale buu u ekaanayaa isku sii dhexgelayaa maasha allah alaabtan waa haddaad tijaabisaan asxaabe waa yaabi doontaan insha allah faa'iidaday leedahay lugahaaga waxaa moodaysaa baan ku leeyahay in caruur yara ilmo yara cagiisa aad taabatay markaa taabatid haddii aad waqti gelisid oo maalin walba asbuuc walba marsatid ama maxaan ku rahdaa maalin walba marsatidna maasha allah adiga caga adag waa isdayn doontaan meel baana iska saaraysaa caga adag saa kuu sheegay waa insha allah markaa ka dhaqaysid biyo qandac ah oo kulul iyo lindhanaan waa inaad kaga dhaqdaa oo aad iyo saabuunta aad markaa isticmaalaysid
marka hore waxaa ku sameysaa saabuunta aad isticmaalaysid biyaha. Marka hore waxaa ku shubeysaa liin dhanaanta, kabacdi waa ku dhex gelinaysaa 5 daqiiqo baa u daynaysaa cagaha. Markaa 5 daqiiqo biyo qandaxooda xoogaa fiican oo diirimaada aad soo saartid kadib baa kasoo saaraysaa liinta. Waxaa ku xoqaysaa qolofteeda liinta aad ka tuujisay. markaa ku xoqdid kabacdina waxaa isticmaali doontaa insha allah saabuuntii aad markaa rabtid inaad isticmaashid oo cagaha ku dhaqan lahayd maasha allah. kabacdi ama kareenka caadiga marso ama faasiliin caadiya marso. markastaa guriga joogaysid cagahaaga inay qalanaadaan ma fiicna insha allah. waxaa fiican inay kareenku marsan yihiin ay isaga cishaan oo isaga difaacaan dabaysha iyo waxyaalaha soo dhacaya si hadhowti markaa dhaqdid isla markii ay wixii kareenka u raacaan oo aysan cagihii kaa duldilaacin insha allah. balanteen waa in la iska warhayaa, aan waqti isgelino, jirkeena usoo jeensano. waxba waqti badan kaama qaadanayso kuma inaad naftaada taker garaysid. aad baa mahadsantiin asxaabteena qaaliga. haddaad nagu cusubtiin fadlan subscribe, hana ilaawina gambareelka taabatid youtube-keena daryeelka jirka. sidoo kale page-keena haddii aad ka mid tahay asxaabta page-keena ku jira soo dhawaada. haddaydan ka mid ahayna sidoo kale like saara fadlan insha allah. aad baa mahadsantihiin. waxaan soo wadnaa insha allah fiidiyoyo badan oo aad faa'iido u leh maasha allah. soo wadnaa dhammaan jirka ah, gacmaha ah, lugaha ah, wajiga ah. waxaana ka wada sameynaynaa wax fudud oo aan u baahnayn inaan waqti badan geliso tiraahid ma ii yaalaan, ma isticmaali karaa, xageen ka heli karaa. ma ahan kulligood insha allah waxaan ka sameyn doonaa waxyaalaha aad adigu gurigaaga ka helaysid oo aad kuugu fudud laga helaysaa. aad baa u mahadsantihiin asxaabteena qaaliga. haddii aad ka heshay like taabo batonka. thank you, I love you dhammaantiin.